waxaynu si kooban u dul istaagi doonaa taariikh nololeedka gabadha Nawaal al-Sacdaawi. waa tuma Nawaal al-Sacdaawi waxaa maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada haystay labada cisho ugu dambeeyey gabadh la yidhaahdo Nawaal al-Sacdaawi geeriyootay. waxaan isweydiinaynaa inteena badan aynaan xog badan ka haynin waa tuma Nawaal al-Sacdaawi yay ahayd. waxaan dib u yar fiirin doonaa taariikhda nololeedka Nawaal al-Sacdaawi. kama hadlayno mana falanqayn doono waxay aaminsanayd fikirkeeda kahorimaadka diinta ka hor timid habdhaqanadeeda noocaas oo kale macnaha iyo caqiidooyinka waxay aaminsanayd. baabkaas waa baab gaar baan uga hadli doonaa, mawduuc gaar ka samayn doonaa fikradaheegii diinta ka hor timid iyo waxyaabay ku dhaqmi jirtay. balse waxaanu si kooban uga hadlaynaa oo mawduuceenan maanta uu khuseeyaa waa tuma gabadha Nawaal al-Sacdaawi. waa dhakhtarad qoraayad masaariyad ah. waxay difaaci jirtay xuquuqda aadanaha, gaar ahaan xuquuqda haweenka. waxay sidoo kale caan ku ahayd la dagaalanka ififaalaha gudniinka fircooniga. macluumaad yar oo ku saabsan Nawaal al-Sacdaawi. waxay mihnadeedii caafimaad ku shaqo bilowday sanadkii 1955 waxaana 2 sano kadib bilowday inay ka shaqeyso mashruuceedii sugaaneed iyo baahinta fikradaheedii iyo dhaqankeedii. sheekadeedii ugu horreysay ee qortay waxay ahayd waxaan bartay jacayl 1957. xagaagii 1968 Nawaal al-Sacdaawi waxay shiday oo ay dab iyo baansiin qabadsiisay dunida carabta oo dhan markii ay soo saartay buuggeedii la magacbahay haweenka iyo galmada. buuggii ugu dambeeyey ee ka qayliyaan bulsho, muxaafid, mucaarid, sheekh iyo shariif, taasoo ugu dambeyntii u horseeday in laga eriyo wasaaradda caafimaadka. Nawaal al-Sacdaawi waxay la taliye uga soo noqotay qaramada midoobay arrimaha haweenka Afrika iyo Bariga Dhexe, waxayna sanado kale kusii jirtay ku shaqaynta shaqo habfikirkeedii sugaaneedkii iyo aragtideedii. taasna waxay sababtay tuufaan khilaaf oo hor leh. waxqabadka Nawaal al-Sacdaawi sanadkii 1957 Nawaal waxay soo saartay sheekadeedii ugu horreysay ee sheekooyinkeeda. buuggan waxay si toos ah uga hadashay shakhsiyadeeda iyo cawaaqibta ay kala kulantay qoraal ahaan iyo weliba dhakhtar ahaan. waxayna ku sharaxday in bulshada ay u baahan tahay jacayl qeexan. marka la eego aragtideeda, jacaylkani uma dhexeeyo ninka iyo naagta, hooyada iyo carruurteeda, ama aabbaha iyo wiilkiisa, laakiin waa xiriir ka dhexeeya dhakhtarka iyo qofka marka uu naftiisa u bixinayo dadka kale dartood adigoon eegin lacag. maqaalkeedii caafimaad waxayna ku daabacday dhammaan aragtideeda iyo waxay aaminsan tahay iyadoo aan xad iyo cabsi midna lahayn. waxayna ka shaqaysay tafsiirka guud ilaa ay ka dhamaysay. Nawaal al-Sacdaawi waxay ka soo shaqaysay wasaaradda caafimaadka iyadoo agaasimo ka ahayd caafimaadka bulshada iyo kaaliyaha xogeyaha dhakhaatiirka. marka laga reebo in shaqada laga ceyriyay kadib buuggeedii ay qortay haweenka iyo galmada 1972 sanadka. sidoo kale joornaalkeedii caafimaadka waa la joojiyey. sanadkii 1973 ilaa 1978 Nawaal waxay ka shaqaysay macadka sare ee fanka iyo sayniska. weligeed kama joogsan qorista iyo ka warbixinta tacadiyada haweenka. sanadkii 1973 sheekadeedii ugu caansanayd ee The Woman at Point Zero ayaa lagu daabacay Beirut, waxaana xigtay 1976 dhimashadii webiga Niilka. sanadkii 1977 ay soo saartay wejigii qarsoona ee haweenka dunida carabta. sanadkii 1981 Nawaal al-Sacdaawi waxay si cad u dhaleecaysay xukunka hal xisbi ee madaxweyne Anwar Saadaat, waxaana la qabtay oo la xiray bishii Sebtembar 6, 1981, waxaana la sii daayay hal bil kadib dilkiisii sanadkii 1982. 1983 waxay soo saartay xasuus qorkeedii jeelka haweenka, waxayna markii dambe sheegtay in markii ay ka soo baxday xabsiga ay jeclaan lahayd inay qorto dhambaal mahadnaq ah oo ay u dirto Saadaat, kaasoo ka dhignaa inay xanuunka, murugada iyo rafaadka u rogto shaqo abuur.
waxay ku daabacday Qaahira 2004 buuggeedii ugu dambeeyay ee novel. Nawaal al-Sacdaawi waxay ku guuleysatay abaalmarino badan oo carbeed iyo kuwo caalami ah oo ay ka mid yihiin abaalmarinta Waqooyiga iyo Koonfurta Golaha Yurub, abaalmarinta Spectrum oo ay Sweden bixiso, abaalmarinta Ururka Suugaanta Afrika ee Gibran, abaalmarino kale oo ay ka heshay Ururka Saaxiibtinimada Carbeed ee Faransiiska, iyo abaalmarin ka timid Golaha Sare ee Farshaxanka iyo Cilmiga Bulshada oo ay u dheertahay shahaado sharaf maamuus jaamacado fara badan oo shisheeye ka heshay. Nawaal al-Sacdaawi nolosheeda khaaska ah, inkasta oo ay marar badan guurka sharaxaad ka bixinaysay ay ku tilmaantay inuu yahay is-addoonsi iyo dulmi cadaadis ku dhisan, haddana Nawaal al-Sacdaawi waxay guursatay 3 jeer. Kii ugu horreeyay wuxuu ahaa saaxiibkii Dr. Axmed Hilmi, kala tagooduna wuxuu dhacay 2 sano kadib balwadiisa iyo isku daygii inuu dilo. Waxay isku lahaayeen gabadh Muuna Hilmi oo ah suxufiyad iyo qoraal si cad u raacday raadadka suugaanada iyo aqoonada hooyadeed. Markii ay kala dhammaadeen, Nawaal al-Sacdaawi waxay damacday inay guursato nin sharci yaqaan ah. Guurkiina wuxuu ku dhammaaday muddo aad u yar kadib. Nawaal al-Sacdaawi waxay ka tiri sababta kala tagga: markii ninkayga labaad qayliyay, ma aniga mise qoraaladaada? Aniga ayaa yiri qoraaladayda, waana kala tagnay. Kadib waxay guursatay markii saddexaad qoraaga iyo siyaasiga Shariif Xataata oo u xidhnaa 13 sano madaxweyne Jamaal Cabdinaasir, waxayna dhashay wiil iyo gabar. Waxayna kala tagay 2010 43 sano kadib oo